nafisu maxamed waxay dhahday abaayo cabdiqaadir couple ma tihiin please isoo jawaab. ha of course cabdiqaadir couple anahe allah i xifdiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد channelka Queen Xafsa. qofkii in hor fadhiyo waa Xafsa. maanta waxa inta fadhiya inaan ka jawaabo su'aalo badan ay soo weydiiseen. like waxa jira sawir aan soo dhigay community-ga YouTube-ka ku soo qoray isoo weydii waxa jeceshay waan kaaga jawaabi doonaa. so marka hadda waxa u fadhiya inkastoo maalmo iga soo daahay inaan su'aalahaas ka jawaabo hadduu Ilaahay yiraahdo. so hadda YouTube-ka ku dhex jira meesha community-ga gale. tan kale waxaan leeyahay channelka hadduu subscribe ku saarneen subscribe saar daawo videodeedana saad noola socoto wax kasta oo nagu soo kordha hadduu Ilaahay yiraahdo. wuxuu marayaa channelka 191,000 9,000 ka dhiman 200 insha Allah weegan inaan buuxino isku dayno hadduu Ilaahay yiraahdo. so marka community-ga ku jira sawirkana waa kan sawirka su'aalo badan wallahi soo weydiisaan like سيتي أنا سؤالي سوي ديرنا إن أنا جوابنا وهربا سؤالها وقدم به هذا أعتقنا قف كان سؤال شو بسوا قري 16 دقيقة كهرة ما شاء الله أبديت عنه. هاي يا أبو ما يكونوا لين عيال سم كل دشين هنا تانكس قروح بدن. ها بسم الله الحمد لله. هاي أبو ينولين إلى عمر وذا وزياديو عافي ما نهسيو وينولين ilmana way ila dhasheen just because ani ma jeceli familkeyga YouTube-ka inay soo galaan ama ay ku jiraan maanta hadii xataa ay jecelina inaan u ogolaan lahayn because it's not good family dadka dhan YouTube iskula dhex jiro. qofka wuxuu ahaa Maryam Roon abaa waa kaaga mahadcelinayaa sida qurux badan su'aasha ii weydiisay. qofkan hal saac ka hor ayuu soo qoray abaa inaan kula xiriiro ayaa u baahanahay xagee kala soo xiriiray ii sheeg please walaal qaali. insha Allah waxaan igu soo qorayaa Instagram-kayga inta ama qofkii u baahan number-kayga shaqada u soo qoray hadduu Ilaahay yiraahdo. abaayo waa qofka waa aqriyay ka iska dhaaf. bismillah qofkan ugu qoray 3 saacadood soo qoray ka hor wuxuu dhahay abaayo maxaad u guursan weyday. abuu horta aad ugu xumahay guurka waxa aad plan gareynaysid ama ma ahan waxa aad waqtiga rabto ka dhiganaysid waa wuxuu ku horta alla kugu soo jeedinayo. alxamdulillah markasta dukadan waxaan ahaa ilaahow wax khayr badan si soo marka guurka still maybe dhinaca khayrka igu jiro alxamdulillah but hadii wax fiican iyo alla wuu siin doonaa because markasta weydiista. نيس اسم اخرناي حياتين official waxay dhahday abaayo qaali oo markale ma guursanaysa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo wixii loo joogo soo guur ma ahan hadduu Ilaahay keeno wax khayr qabo insha Allah guursan doonaa. najmo iqbaal waxay assalaamu calaykum Queen Xafsa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo magacaaga oo saxan. Xafsa Cabdiraxmaan oo Xafsa Cabdi magacayga saxda kaas waayo soo magacayga saxda. okay فيصل حسين wuxuu dhahay ma sha Allah Queen Xafsa aad ay qurux badantay waan ka helay hunno. thank you walaal macaan. nawaal waxay dhahday waa ku salaamay abaayo su'aal kuma weydiinayo Allah ku xafido aamin. nafisu maxamed waxay dhahday abaayo cabdiqaadir couple ma tihiin please isoo jawaab. ha of course cabdiqaadir couple anahe. oh hi Allah i xifdiyo. qofkan ani soo xiriir abaayo Ilaahay ha ku xafido. Xafsa caday sidoo kale hagar sheekh waxay dhahday Queen Xafsa waxba su'aal ma ku wato walaashay dar alle ayaa ku jecel. thank you. Salmaan wuxuu dhahay gabar aan si gaar u jeclahay ayaa tahay hore u soco sharaftaadana ilaasho if you know what I mean. okay hodan waxay dhahday
abaayo waan ku jeclay, allaha ku dhowro noloshaada sii wado insha allah, inaan mar un kulanno waan jeclahay insha allah hadduu ilaahay yiraahdo. Amba waa jeclay qof kasta oo faan iyo inaan la kulmo hadduu ilaahay yiraahdo. Sahro waxay raadayay Xafsa abaayo ma laga yaabaa inaa Hargeysa timaado, waa jeclaan lahaa hadduu ilaahay yiraahdo inaa imaado. Queen Xafso Naciimo waxay dhahday Queen Xafsa siis horta marka hore allaha ku xafido guuleyso, marka xigta hadda maxaas ayaa tahay mise single? hore ayaa su-aashaas ugu soo jawaabay. xaas iyo single wixii liiba hore ugu soo jawaabay. insha allah waa rajeynayaa. su-aalo aad ayay u badan yihiin, 1,000 iyo dhowr su-aal waayo. ma umaleynay saa-id ay u badan yihiin maasha allah. AJ Salah wuxuu dhahay Xafso waan ku weydiinayaa imise jir ayaa tahay? abuu 20 bishii 3aad 20 sano ay gashay. Asad Mukhtaar wuxuu dhahay ma tihid gabar carab dheer, waxaa tahay oo ilaahay kuugu manaystay qof deganaan iyo afgaabni isku darsatay, marka ani ahaantii waxaan kula talin lahaa wax walba ama dhaqan waliba oo isleedahay waa uu ku bedeli karaa sida hadda aad tahay, isaga dheeraaw insha allah. kheyr badan allah ku siiyo. FRL boqorka wuxuu dhahay Xafso walaalay shab ma isku dhahnaa 7 sano ku aqaan 7 sano anama ku jiri social media 2019 ka soo galay 2021 2 sano ugu badanta ku jira. Cabdisalaam goormee guursanaysaa? markuu alla keena qof wanaagsan. maasha allah macaanti ilaaha ku xafida aamiin. siis waxaan ku weydiinaa meeqo waayo walaalahaaga gabdho iyo wiilal? anaga dhan waxaan ahay 14 15 ilaahana xifdiyo 15 aan ahay. su-aasha maanta dhan way usoo laabanayso abaayo goormee jeclaan lahayd inaad guursato? waxaan rajeynaa inaad soo qaadato. abaayo waa soo qaadatay qoraalkaaga insha allah markuu alla yiraahdo. taasun baa dhihi karaa. Fartuun waxay dhahay aada ku taageeraa Xafso Queen, waxaan ku dhihi lahaa saaxiib inaan kula noqdo oo qadka iskala hadalno, waxaan joogaa Muqdisho. I love you reer Muqdisho land, aada u jecel Muqdisho. abaayo waxaan rabaa nambarkaaga. okay nambarkayga waa kusoo qora hadduu ilaahay yiraahdo. Xafso qofkan siyan waxay dhahay Xafso ma shaqeysa abaa iisoo sheeg. abaayo haddaba waa socdaa oo maxaa lahaa dukaan ayaa sameynaya oo la dhisoyaa. insha allah ma jeclaan inaan soo fadhiista sheego, but because su-aashaada already waa aqriyay mana ku dhihi karo beenna ma kuu sheegi karo because tomorrow waa arkaysaa ma biri dambe hadduu ilaahay yiraahdo. abaayo Maxamed Cali Macalin wuxuu dhahay boqoradeena marna walaashiin aniga waxaan wataa 2 su-aal. noloshaadii hore markaa familka lahayd iyo nolosha hadda farqiga u dhexeeya bal wax yar inoo sheekee, waa haddii aad raali ka tahay su-aasheeda. walaahi nolosha familkana way nolol qurux badan, nolosha saana way kasii qurux badan taa dhihi karaa because you have your own freedom. gabar diin lagu soo barbaariyay ayaad iila tahay, waayo waxaan maalin hore arkay adoo quraan si maasha allah u aqrinayo barnaamijka ramadaanka Yaxya Hunter. ka waran haddii aad noqoto mid youtube-keeda u badiso dhanka wacdiga gelinta dhalinyarada Soomaaliyeed, inkasta haddaba dhanka xumaanta aad ku jirin? waa jeclaan lahaa wallaahi maasha allah. horta waxaa waay commentigan commentiga ugu quruxda badnaa aqriyay. of course abuu diinta waa soo bartay, qur-aankana waa dhameeyay dhowr jeer. somehow tafsiirtiisana macalinkeygu isoo baray, inkasta oo aan iska halaabay maalmahan insha allah waa sameyn doonaa. Nimco waxay dhahday Queen hadda ilaa heerkeed ka gaartay waxbarashada? waxbarasho dadka Kenya fahmi kara ilaa form 2 waa iska dhaafay.
because boardna dhigna boardingana wuu ila xanuun badnaa saa marka isaga dhaafan YouTube iyo balaaya daran le soo galay ilaaha naga madoobay waxbarashadeena wax noo dhaamo ma lahane boss in the Somaliland qofka ugu qoran wuxuu dhahay kaliya maxaad u degan tahay oo familkaaga ula degi weyday adigoo xumaan iyo fahmaynin jawaab waxana ka sugaa baa okay su'aashaas marar badan ay soo weydiiseen waxa aan guri ugu degan ayaa waxa tahay hada gurigayga jooga every time na waxa isticmaalaa YouTube samaha I need ina video duwa habeen waqti dhexe ama subax ama hada camal waxa waaye 8 saac duhurnimo so marka ma awoodo familka dhaxdiisana wax ku dadooba ama familkayga guriga ku nool yihiin ina camera soo qaato wax duuba ama YouTube soo dhigo taas ani aad ugu dhinta ani waa halaawo YouTube ka waa dhaxgal iyo qashinkiisa barka ani ma jecel familkayga ina YouTube ama wax dharkooda xitaa in lagu arko ma jecel so saas darteed ayaa ani gooni u dagay si u helo freedom yes waa ogahay maanta waxa ay qof dumar oo maanta saas u weyneen mana hooyo ogolaanaysa malaha gabadha inay gooni u degto but ani wallahi akhlaaqda horta wax fiican waaye si kasto horta waxa ku sheegay adig waxa arkaysid social media ku dhex arkaysid waa waxa ani ogolaad inaan aragto ma ahe waxa ani maanta jecel inaan aragto ma arkaysid so marka maybe hooyo she has trust in me because me qof maanta nolosheeda ka adkaan weyso oo meel kasto oo iska taagan so marka horta runtii anima ka baxo guriga marmar la ina isla aadam ogi ma jecel xitaa xafladaha iyo waxa saasay ma jecel mid oo qaali oo qof said igu dhameeyay so marka she has trust in me way aaminsantahay because waxa ay ogto samaha hadii oo maanta somehow ahaan lahaa some other people maysan iyo ogolaateen inkastoo markii hore ay isan iyo ogoleen wuxuu kusoo baxay markii dambana ay aragtay inaan isxamili karo oo somehow ahaan kara caadi alxamdulillah waan ugu faraxsantahay hooyo abay waxa su'aal kuma weydiinayo waayo su'aal waad kala dantahay wallahi dar Allah iska ka jecla kuwii nolosha kuma xumaysa aamin aamin ya rabbal caalamiin xafsu qulu hooyada iyo aabaha maduuliyin meeqa walaal ayaa ku la tooyo u sheegay alxamdulillah way noolyihiin 15 waan walaalihayga oo dhan aga hadooya كوين حفص ولا شيء قال ولي جيرو جوك واحد بلايكم وتس آمين يا رب العالمين ولا الورق سومالي سماد بيدابو سومر أدو إلهي يراد أباي واحد قف وناكسن أنيقو ولي جيكو أرك هذا ريسك جعل فرحت إيقون ولو شيء هذا أمها سنتي ولا ورد أنا هلو حارك لا جبتها أو محلها سوشيال ميديا كجور دياري لجود ولا جبت سايد في عنوان like ولا waxay ku advice gareynaan inaad tahay walaashood ama kaaween ama kaayar wala saaid ku advice gareynaan like maanta waxay ka soo qaadaan booska ayaga taagnaan la social media ku jir lahaan inta hadda video kasta duuba dhiirigelintiina iyo sidii quruxda badan comment igu soo qortaan of course YouTube maanta qof muu jawaabi karto TikTok oo jawaaba but lava usara qofka commentigiisa ka helo wallahi aada uma santiin Soomaalida marnaba wax la siisan kara malaha totally they are good هذا أمها سنتين أوكي ميري مختار وحود هاي محاكو كليفيني من بدن أصحاب هذا هنا النقدان أوكي سؤالي سكاك الجواب because أنا ويلي لا كسر دحكري جبرنا ما يمكسر دحكرين هاي لا جبر إلى هاد أنا سو مركا أنا في ملك أبا مركا لجوجي ويلي لا كسر دحكري كازين سأهادين ولا لا أهادين وحبها أهادين أيها كسر دحكري markii labaad maxaa la social media soo galan because I don't like hooyo even waxay dhahdaan naagaha badi hooyo iska ilaali they are not good waana arkay ani yes naag saaxiib waa la noqday digaalkooda badan iyo xintooda iyo xaasnimadooda laakiin wiil wallahi trust me boss kulaakiisu ka soo qaadaya is good ina wiilka saaxiib la noqoto because mar hadii qof saaxiibatiin wiiliba qof wiil siyaadana wallahi trust me wuu ku ilaalinaya wiilkaas waxa jeceshan maanta ma ka weynaysid wallahi hada lacag u baahantahay hadii amaanta advice u baahantahay advice the best thing oo qof weydiisan kartid wuu ku siinaya maanta wallahi way ku dhiirigelinayaan wiilasha su'aasha labaad su'aasha inta soo fawziyo ninka aad jeceshay noo soo sheegay الله يا غفور رحيم أختي قفك جعلها أملينا ولا شيء سؤال
haddaan horay u soco su-aalood ka dhigantan hore u soco lugtaada hoos ha seexdan. One love cadowgaaga lugtaada hoostaada seexdaan. Thank you so much. Walahi su-aalaha saaid ay u badan yihiin. Queen waxaan ku weydiinaa weligaa ma guuri doontaa? waa ka jawaabay su-aashaas. Queen waa ku jeclay. waxaan ku weydiinay meeqa gabaraa kula dhalatay abaayo, laakiin waxaa ka wadaa adigoo dhahay ma arkin walaashay. Okay, waxaa la dhasheen 3 gabdhood. 3 Caasha, Sumaya, Shamiim. 3daas gabdhood ay la dhasheen. ilaaha ay xifdiyo. Sumaya oo weyn, Shamiima ku xigto, Caasha oo yar. 3daas gabdhood they really mean world to me. waa jeclahay, aad u jeclahay. Mummies oo idin jeclaan. su-aala kusoo laabanaysa goormay guursanaya? xaas maa tahay? su-aasha koowaad, ragga ajaanibta maxaa ula degtaa? Excuse me abaayo, ani nin lama degani, guriga keligeyga degan. Okay, haddana isla qofkii wuxuu dhahay maxaa keligaa ku dejiyey? Okay, waaba i weydiisay ragaa la degantaa dhisa maxaa keligaa ku dejiyay dhisa. su-aashaas meel meel gasho. keligeyga ayaana degan, gurigaana aragtid, qof kale ilama degan abaayo. munasir yare wuxuu dhahay ilays shumac baxayo iftiinka nalkaad tahay, ubax soo dilaaco aroor jooga baad tahay, neecaw udgoon iyo saxan saxo ayaad tahay, 4 iyo 10aad iyo dayax ololaaya tahay, garad caqli sare iyo dhal ugaas ayaa tahay. Queen Xafsa, wow, so cute of you. Thank you abuu macaan. abaayo waxaa kaa codsanaya inaana barto walaalaha hooyaday aabaha. sorry, taas ma sameyn karo, maba jecel xitaa inay youtube soo galaan. su-aalahan way kusoo laabanayaan, su-aalo aada ugu soo laabanayo waa walaahi. Queen Xafsa, intii social media ku jirta aan jeclahay, ma laga yaaba inaad Muqdisho kusoo laabato? 2 maraa imaaday, insha Allah mar 3aad hadduu ilaahay yiraahdo waa isku dayaya. so marka guys waxaa idin leeyahay su-aalaha saaid ay u badan yihiin, 1 iyo dhowr waaye. intaas dhanna ma ka jawaabi karna aawe. so much waaye. insha Allah haddii aad ka heshay videoga like saar. haddii aad jeceshay su-aalaha inaad sii wado amaba kuwa qaas ay soo diraysid, insha Allah waa kasoo jawaabi doona hadduu ilaahay yiraahdo. dadka u baahan inay ila soo xiriiraan anaa maxaa la numberkeyga amaba instagramkeyga idin soo qoraya. so marka waxaa idin leeyahay kulligiin meel walba aad dunida ka joogtaan waa idin jeclaan. videogaasna waxaa ugu talagalay inaad ogaataan wax walba ay weydiisaan. intii aad commentkooda soo qaatay aada umahadsantiin. intii aad soo qaadanin insha Allah waa soo qaadan doonaa. oo haddaad jeclaato inaad su-aashaada ka jawaabin aragto, waxay dhahdaa Queen part 2 soo samey, insha Allah waa sameyn doonaa. intaas iyo inta mar kale intaa ka kulmeyno waxaa idinku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo, amaana Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.